ماشي هتاك موقت موجودة بيحق لها حدا دي فرتا بيحق لها waa dhacdo argagax iyo uur ku talo leh gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo ayaan jaamaco ardayad ahayd isla mar ahaantaana wax ka baranaysay jaamacadda East Africa ee magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waliba hab online ah iyadoo degneyd xaafadda Kabowa oo ka mid ah xaafadaha magaalada Kampala ayaa waxaa mar uu ka da'ayay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda roob aad u xoogan kaasi oo aad u xooganaa bulaacadaha biyaha qaadana ay waaweyn yihiin ayaa gabadhii markii ay ka degtay boodhada waxay ku dhacday bulaacad weyn isla mar ahaantaana waxaa soo gaaray garaafooyin aad u weyn iyadoona aysan helin wax badbaadaha ninkaas liisiiniyo maarata halkaas istirmar dhinaca kale way mari kari lahayd ninkii maarata gacanta taagtay ماشي هتاك موقت موجودة بيحق لها حدا دي فرتا بيحق لها nin kale هذا تكتي ماشي كان يسي سعوتها خصب يا تور مركا وايا marxuumad ayaan jaamaco ardayad ahayd isla mar ahaantaana ku dhacday bohol bulaacad weyn ahayd oo ku taal xaafadda Kabowa ayaa maanta lagu aasay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda fadlan muuqaalka la garee oo channelkeena duceysana media ku soo bir subscribe saar oo page-keena duceysana media follow dheh maasan daawade